mahad iska leh subxaana wa tacaala waxaan u mahad celinayaa dalladda isku xidhka haweenka ee nagaad waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaa yowmi jazaa waxay tahay kelmadda baaqayga ah ee aan dirayaa runtii maaha kulankan maanta oo keliyihii kuma filla horta haweenka iyo waxsheegooda ama dhiirigelintooda waxaan baaqa u dirayaa hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee arrimaha haweenka taageera waxaan leeyahay waxaa loo baahan yahay maadaama waqtigii doorashadu fooda inagu soo hayo in wacyigelin ballaaran degmooyinka ay doorashooyinku ka dhacayaan oo dhan deegaamadooda la tago sidoo kale waxaan leeyahay haweenku hays daneeyaan hana ogaadaan halka ay dunida maanta kaga jiraan gaar ahaan haweenka reer Soomaaliland baan la hadlayaa runtii waxaynu leenahay awood iyo adkaysi intaba inkastoo aynaan dhaqaale weyn lahayn waxaan xukuumadayda u soo jeedinayaa dalabaadka haweenka in hoos loo eego iyadoo lagu guda jiro u diyaargarowgii waqtigii doorashada labada gole ay dhici doonaan run ahaantii anigoo ogsoon ama ku qanacsan in ay kalsooni badan siinayaan haweenka ogol yihiinna inay taageeraan haddana waxaan leeyahay lagu dhiirado hana la soo dedejiyo sidii loo dhamayn lahaa dhawaaqaana looga qaban lahaa wixii ay haweenku u baahan yihiin ee sharcigu uu ogol yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu